dhalinyaradeena sidee baan ugu dhaadhacsiin karnaa weeye social media hayna isticmaal dhanka positive ka ah kow in awareness loo sameeyo dhalinyaradii oo laga wacyigeliyo oo nolol sheeg wax kale gudbinayna bari ka maalin ayaga mustaqbalkooda ama backgroundkooda ay ku yeelan karto saameyn marka labaad in laga soo saaro police cad oo mintaqana qofkii shuruucdii loo dejiyay ka gudba qabanaysa oo markii la geeyo siyaasadii lagu qaado qofkii ama xeerkii uu qabto ama mintaqana markii meeshii la geeyo jeelka la geeyo oo mintaqana macna la xisaabtamo dadkan ka daba imaanayo kale aan u badiyay waalid oo leeyahay ilmihii wax qaldan ma soo sameyn hadduu ra'yigiisa gudbiyay wax dhibaato ma laha qofka ra'yiga uu gudbinayo ama waxa uu sheegayo waa inay noqotaa wax wanaagsan dhanka haddii wax wanaagsan laga fiiriyo ama sida ugu saxan wixii loo isticmaalo waxay noqonaa bulsho horumarsan laakiin dhibaatada maanta naasta waxay tahay inaan nahay dadka wax khaldan gudbinaya ka dhalinyar ahaan dadka ugu horeeya dhageysanayana maanta waxa maqan guriga geenayna waa anaga marka badanagu nafteena aan ka bilowno oo wixii dalkeena iyo anaga saddexanteena dhibaato noo geenaya inagoo aan u fiirin badeecan viewskani waxaan aan ku helayno bal horta waxa kan dalkaaga faa'iido ma u leeyahay adig bari kamaal waxa tahamiyaha waxa ugu jira hiigsi dheer maanta waqti waxyaalaha ugu badan qof maanta qalad u galay maanta markuu meel soo istaago aan taqaanaa oo noqdo qof horumaray in laga daba imaanayo hebel waagu saasamay adiga saameyn bay kugu leedahay waa qof walba oo soo baxay hadduu nafsadiisa ka bilaabo uu soo yani waxa uu qabanaya inta wax wanaagsan waxaan malanay dalkan inta ugu badan social media ma soo dhalinyaro marka dhalinyaro waxa ugu badan ka fadhiyana waa dhalinyaro marka nafsadeena aan ka bilowno wax wanaagsan dadkeena naga dambeeya iyo kuwa aan dhali doono aan uga tagno